دولة جيبوتي وأنا مدوي مك أسبوع أكون مغنين سيدا وناكسن إلى نوسو دويي runtii waxaanu gaarsiinay madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle fariinaanu ka siino madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo runtii nuxur badan xambaarsanayd hawlo badan oo labada dowlad ka dhaxeeyana waxaanu runtii ku dadaalay in si dhow oo walaaltinimo ah la isaga kaashado waxaan runtii ku soo dhamaatay safgarad qiimo leh oo wanaagsan waxaan u tagnay runtii dad iyo dal aynu saaxiib nahay walaalanahay dareensan waxay naga dhaxeeya jecel inaynu wada shaqeyno isku soo dhawaano marka runtii aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa aniga iyo wafdiga aanu wada soconno muxuu ahaayay ka kooban generaalada oo runtii aanu kala kulanay qiimo aad u badan runtii madaxweynaha Djibouti waa madaxweyne aad u daneynaya muxuu ahaayay isku soo dhawaanshaha sida madaxweynaha Soomaaliland uu u daneynayo runtiina waxaan halkan jecelahay ka sheego labada madaxweyne inay ka go'an tahay sidii labada dal la isugu soo dhaweyn lahaa iyo waxa ay isu yihiin laga faa'iideysan lahaa marka laga yimaado Djibouti loo yacda timaadeen dowladda Djibouti heshiis oo masaxatay heshiiskaas muxuu ku saabsanaa ujeedadiisu maxay tahay heshiiskaas waxa weeye sida imika aan sheegay sidii dadku isugu socon lahaa sidii loo fududeyn lahaa Hargeysa waxa weeyaan runtii meelaha waqtiyada xagaaga loo soo xagaabixi reer Djibouti yimaadaan waa dad isla sidii arrimaha loo fududeyn lahaa Soomaaliland lafteeda shacabkeedu markuu tagayo Djibouti siyaaranayo sidii loogu fududeyn lahaa oo runtii arrimo dhowr ah aan isla garanay in la iska kaashado waxa la wixii labada dowladoodba dhib ku ah in la fududeeyo hawlaha labada dal u dhaxeeya ayaanu kala seexanay runtiina si wanaagsan baan isugu afgaranay waxaanu tagnay si aad sheegtay loo yacdo annagoo isbaray ama isu geynay madaxda xuduudaha ka shaqeeya dhawaan haddii la yiraahdo waxa la sameyn doonaa guddidaasoo loo magacaabi doono si ay isaga kaashadaan hawlaha labada dhinac ee xuduudaha